kulanti wanaagsan halkan warqad tube waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee kaga hinakooda ugu waaweyn xog dheeraad ah oo laga helay waxyaabaha looga hadlay kulan gaar ah oo Garowe ku dhaxmaray ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo Mahdi Guulad ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxaa ka jira in labada mas'uul ay isku soo dhawaadeen muddo kadib faahfaahin dheeraad ah oo laga helay qaabka loo fuliyay weerar xalay lagu dilay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Jubbaland iyo Axmed Madoobe oo war degdeg ka soo saaray madaxweynaha galmudug oo tanaasulkii ugu weynaa muujiyay si lama filaan ahna u garab istaagay dawladda federaalka xilli uu jiro loolan siyaasadeed oo xarka goos noqday duqayn diyaaradeed oo lagu weeraray goobo al-shabaab muhiim u ahaa iyo xog dheeraad ah oo laga helay waxyeelada ka dhalatay yaa aqalka wakiilada Mareykanka oo laalay awood uu adeegsaday madaxweyne Trump oo xilka ka sii degaya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warka insha Allah waana sibti taariikhdu ay ku beegan tahay labada bisha koobaad sanada cusub ee 2021 daawade nagala qayb qaado faafinta warkan adigoo gaarsiinaya asxaabtaada kuna share gareynaya baraha bulshada waad ku maasantahay qaybta comment-ga haddii aad nagu raabto aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowno warka warqaatiyo waxaa xalay magaalada Garowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland kulan gaar ah ku yeeshay ra'iisul wasaare hore ee dalka Xasan Cali Khayre iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guulad Qadar kuwaas oo la sheegay inay arrimo dhowr ah ka wada hadleen inkastoo labada dhinacba faahfaahin rasmi aysan ka bixinin duluucda kulankan iyo waxa ay ka wada hadleen Mahdi Guulad Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa hoyga uu magaalada Garowe ka degan yahay ku booqday ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo hadda ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya kulanka labada mas'uul ayaana wax uu u badnaa salaan iyo isxog waraysi kulanka dhaxmaray Xasan Cali Khayre iyo Mahdi Maxamed Guulad Qadar ayaana laga bixin faahfaahin dhaafsan salaan iyo sawiro mana jiro wax war ah oo kulankaasi ay ka soo saareen xafiisyada warfaafinta ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guulad Qadar iyo musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre inkastoo ay soo baxayaan xogo madax bannaan oo kulankaasi ku aadan Xasan Cali Khayre iyo Mahdi Maxamed Guulad Qadar ayaa ahaa saaxiibo wada shaqayn fiican ay ka dhaxaysay ka hor inta uusan Xasan Cali Khayre iska casilinin amaba laga qaadin xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mana jirin wax kulan toos ah oo dhaxmaray labada mas'uul markii shaqada uu ka tagay Xasan Cali Khayre kadib xogta laga helay is-aragga labadan mas'uul ayaa sheegaysa in ay isla gorofeeyaan xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo muran badan iminka uu ka jiro Xasan Cali Khayre iyo Mahdi Guulad oo xilliyadii dambe siyaasadda ku kala tagay ayaa la sheegay in is-araggooda tooska ay uga hadleen sida lagaba maarmaanka u tahay wax kasta in looga tanaasulo danta guud ee dalka iyo dadka taasina ay tahay mid lagu wada guuleysan karo waxaana ila ku dhowdhow kulanka warqad ay u sheegeen in labada mas'uul ay isku soo dhawaadeen kulankaasina uu horseedi karo si guud mucaaradka iyo filla Soomaaliya in doorashooyinka ay uga heshiyaan wararka ayaa sheegaya in Xasan Cali Khayre iyo Mahdi Guulad ay islaab xaarteen sidoo kalena ay isxasuusiyaan wanaaga ka dhaxeeyay muddadii ay soo wada shaqeeyaan muhiimadana ay tahay wax kasta oo dhaca in lagu ilaawo wadajirka dalka iyo dhowrista dawladnimada Soomaaliya Mahdi Maxamed Guulad Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo kulanka ka dalbaday ayuu Xasan Cali Khayre si fudud ugu aqbalay mana jirin tan iyo markii uu xilka ka degay Xasan Cali Khayre in uu kulan la yeeshay mas'uulkan Garowe xalay ay isku arkeen ah Mahdi Maxamed Guulad Qadar warar hoose oo soo baxaya warqadna uu helay waxay tibaaxayaan in kulamadan ay Google xaar u noqon doonaan sidii la iskugu keeni lahaa mucaaradkii madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo xilligan arrimaha doorashooyinka ku kala tagsan Xasan Cali Khayre oo tan iyo markii xilka uu ka degay wax dhaliil ah u jeedin dawladda federaalka Soomaaliya kana gaabsaday in weeraro toos oo ku qaado si la mid ah musharaxiinta kale u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayay filla Soomaaliya u aragtay inuu yahay shakhsiga ugu degan xubnaha u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayna ka suurta gali karto inuu kala qayb qaato sidii mucaaradka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay uga heshiin lahaayeen arrimaha doorashooyinka shabakada wararka ee warqad tube ay daawanaysan qodobo kale oo xiiso leh arrimaha siyaasadda Soomaaliya daaranaya inoo soo socdo balse markan waxaa faahfaahin laga helayaa qarax xalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland oo lagu dilay Allah u naxariistay Khaliif Hashim Nuur Geedi oo ka tirsanaa baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland gaari nooca raaxada ah oo qarax loogu xiray ayaa xildhibaanka wax uu kula qarxay xaafadda Farjano waana daqiiqado yar uun kadib
markii uu ka soo baxay hoygii uu ka deganaa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland. wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ku xirnaa gaarigiisa oo ku fadhiyay xildhibaanka oo halkaas ugu geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxaasi. joogta qaraxa ayaa ahayd mid aad u xoogan waxayna baqdin gelisay dadkii ka agdhawaa goobta ay ka dhacday iyadoo sidoo kalena laga dareemay xaafadaha qaar ee magaalada Kismaayo. ciidamada booliiska ayaa baaritaano in doora qaatay waxay ka sameeyeen goobtii qarax uu ka dhacay iyagoona kolkii dambe halkaasi ka jiiday gaariga qaraxa uu ku xirnaa. al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu dilay mudanaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ka tirsanaa. waxa ayna sheegeen in xildhibaanka uu ka mid ahaa xubnaha ku dhowdhow madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe. dhanka kale qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland ayuu madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madoobe kaga tacsiyay geerida ku timid xildhibaanka. qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Islaam ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay xildhibaan Khaliif Haashim Nuur oo ku geeriyooday qarax ay gaarigiisa ugu xireen kooxda al-shabaab. madaxweynaha ayaa xildhibaanada baarlamaanka iyo guud ahaan shacabka Jubbaland uga tacsiyay geerida naxdinta leh ee ku timid marxuumka. waxa uuna si gaar ugu tacsiyay ehladii iyo qaraabadii uu ka tagay. isniinta ayay ahayd markii hay'adda nabad sugidda dowlad goboleedka Jubbaland ay sheegtay inay fashilisay weerar la doonayay in laga fuliyo gudaha magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland kaasi oo sida hay'addu ay sheegtay ay soo abaabuleen al-shabaab. si kastaba ha ahaatee xildhibaan Khaliif Haashim Nuur ayaa noqonaya xildhibaankii ugu horeeyay ee sanadan 2021 ku baxa gacanta al-shabaab. warqaad tube ay daawanaysan qodobo kale oo xiiso leh arrimaha siyaasadda Soomaaliya daaranaya inoo soo socda balse markan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo kamid ah madaxda ka qayb galaysa shirweynaha Garowe ayaa waxa madasha lagu weydiiyay su'aal la xiriirta nidaamka federaalka. madaxweyne Qorqor ayaa waxa garab fadhiyay xilliga su'aashan uu ka jawaabayay madaxda Jubbaland iyo Puntland. waxa uuna sheegay inay muhiim tahay in meesha laga saaro oraahda madaxweyne ee loogu yeero madaxda dowlad goboleedyada si meesha ay uga baxaan madaxweynayaasha badan ee Soomaaliya. aniga waxaan aaminsanahay in laga tanaasulo ereyga madaxweyne iyadoo la dhowrayo sharafka dowladnimada Soomaaliya uma qalanto dhowr madaxweyne. taasi waxay wiiqaysaa qabkeeni iyo dowladnimadeena ayuu yiri madaxweynaha Galmudug. wuxuu intaasi sii raaciyay waxaan qabaa in madaxweynuhu uu hal noqdo kuwa kalena magac kale loo raadiyo kaasi oo wada tashi ku imaanaya. madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa tusaale waxa uu soo qaatay safar uu dalka dibadiisa ugu baxay iyada oo madaxdii dalkaasi uu booqashada ku tagay u qaateen in madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ugu tagayo taasi oo ay keentay waxa uu ku sheegay isgarabyac ka jira xaaladda siyaasadeed ee dalka. dal ayaan booqday oo waxa loo sheegay in uu madaxweynaha Galmudug imaanayo laakiin waxay u qaateen in madaxweynaha Soomaaliya uu imaanayo. markaan tagay kadib ayaan u sheegay oo aan ku iri arintu sidaasi ma ahan. marka isgarabyaac iyo madaxweynayaal badan ayaa xilligan Soomaaliya hareeyay. ugu dambeyntii waxa uu carabka ku adkeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor inaysan Soomaaliya dan ugu jirin madaxweynayaal badan isla markaasina loo baahan yahay in arrinkaasi wax laga bedelo iyada oo dib u sixid lagu sameynayo dastuurka dalka. hadda tan dastuurka ayay ku qoran tahay laakiin waxaan qabaa in dib loogu noqdo oo wax laga bedelo ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay madaxweynaha Galmudug. hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya xilligan waxa loogu yeeraa madaxweynayaal taasi oo dad badan su'aal ay ka keeneen sida madaxweyne loo dhihi karo qof gobol xukuma amaba taasi ay keeni karto isbarbaryaac dhinaca siyaasadda ah. weli warqaad tube ay daawanaysan diyaarado dagaal ayaa xalay waxa ay duqeymo culus la beegsadeen xarunta idaacadda al-shabaab ee Andulus ee ku taala deegaanka Kuunyo Barrow ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaare kala duwan. al-shabaab ayaa baraha ay ku leeyihiin internetka waxay ku baahiyeen in mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay 4 gantaal ku weerartay xarunta idaacadda Andulus ee deegaanka Kuunyo Barrow isla markaasina duqeyntaasi ay ku waxyeeloobeen dad shacab ah. sidoo kale duqeyntaasi ayaa waxa ku burburay qaar ka mid ah qalabka idaacadda Andulus iyada oo intii ay duqeynta socotay ay cabsi weyn dareemeen qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka Kuunyo Barrow. ma jirto cid wali sheegatay duqeynta lala beegsaday xarunta idaacadda al-shabaab Andulus ay ku lahaayeen
deegaanka Kuunyo Barrow hase yeeshee duqeymaha noocan oo kale ayaa inta badan waxa fuliyay ciidamada Mareykanka ayaa horay waxa uu duqeymo kala duwan uga fuliyay deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana duqeymahaasi uu sheegay in uu ku dilay saraakiil ka tirsan al-shabaab waxaana mararka qaarkood waxyeello ay ka soo gaartaa dad shicib ugu dambeynna Kongareeska dalka Mareykanka ayaa laalay cod diidmo qayaxana oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu duldhigay hindisiya sharciyeedka dhaqaalaha ku baxaya gaashaandhigga dalkaasi arrintan oo ah mid ugu horeysa ee Trump uu la kulmo intii uu xilka hayay aqalka senatorka dalka Mareykanka oo uu maamulo xisbiga jamhuuriga ayaa wuxuu yeeshay kulan dhif iyo naadir oo ay maalintii koobaad ee sanadka cusub uga doodeen arrintan midaasi oo ay aqalka wakiiladu horay uga soo codsadeen hindisiya sharciyeedkan ku kacaya $740 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa waxa lagu maalgelinayaa siyaasadda gaashaandhigga Mareykanka ee sanadkan 2021 Donald Trump oo toddobaadyo gudahood ku banaynaya xafiiska ayaa diiday qayb ka mid ah dhaqaalaha hindisiya sharciyeedka 81 ka mid ah senatarka dalka Mareykanka ayaa u codeeyay hindisiya sharciyeedka loo soo gudbiyay halka 13 ay diideen iyadoo 3 meelood meel loo baahan yahay inay meel mariyaan hindisiya sharciyeedkaasi si loo laalo codka diidmada qayaxan ee madaxweynaha waxay arrintan imaanaysaa 2 maalmood uun ka hor marka Kongareeska cusub ee dalka Mareykanka la dhaarin doono si kastaba arrintan ayaa waxay tahay mid uu ku fashilmay madaxweynaha Mareykanka si cadna Kongareeska ay kaga hor yimaadeen guud ahaan intaas ayaa ku soo gabagabeynaya warkaad kala socoteen warqaad tube daawad hadaad ku cusubtaa channelka nagu soo bir subscribe dhawr kuma kadibna fura gambalaalka tan ay kulantay damba nabaday magacayga waa Saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy